إلهي بقى محد سكاله وما أنت نوسو تقليي إن أنا هل كان سوي معنه أنه جبين إنه أما صاحر إنه شركة تضاد عشان نوسعودي وحان ربعنا المهد عليو مدحوينها دولة قبلية كالمدب هي الشعب كيس وسوى ناكسل وورطني ماله نوغسو دويي وليس كان فراحة بدن سدح جر أي قادين هديت هاي دقالة يمرتقلين بقى آد يا كنت ذي كلام هذا علينا وحنوم هذا علينا يا مدحوينياشا دولة قبلية هذا ويجو حول بدن دقموين كودي دقانده دي قبلده runtii ku dhex jiray 7 casho halkan u fadhiyay inay helaan xal masiirka Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya aad iyo aad runtii kaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga ah iyo juhdiga aad geliseen inaan gaarno maanta heshiis aan oran karno ummadda Soomaaliyeed inay ku guuleysan doonaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxaan u mahadcelinayaa shacab weynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan taageerada iyo soo dhaweynta ay u soo dhaweeyeen xaqiiqatan shirkii wixii ka soo baxay iyo intaan fadhinayba gubaabada nagu hayeen oo ahayd jooga intii aad ka gaartaan heshiis ummadda Soomaaliyeed dibkay uga bixi karto ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna waa u mahadcelinaya taageeradaas waxaa runtii farxad noo ah sharaf weyn noo ah inaan maanta ku soo gabagabeynayno shirkii saddexaad ee Dhuusamareeb oo aan u fadhinay muddo 7 casho ah sida madaxdii iga horeysay ay sheegeen aan u soo jeednay saacado aad u fara badan oo aan kula farrugnay oo aan runtii meel walba ka fiirinay aan isku diidnay wax alla wixii aan isku ogolaan karnana aan isku ogolaanay runtii waxay ahayd wax sahlan ma ahayn waxaan isu jirnay dhulka iyo cirka iyo xaqiiqatan iyagu waxay taagnaayeen inay wax soo xulaan oo waliba numberkii control-kooda ahaa oo 2016 inay hoos uga dhacaan ay gaarsiiyaan 21 iyo wax ka hooseeya qaarkoodna ay yiraahdeen maxaan madaxweynaha u ahay haddaan dadka soo xuleynba oo waliba qaar ka sii dareen yiraahdeen oo maan iskaga taga meesha haddii aan waxba soo xuleyn dadka meelaha taagan kulligood waa hore iga tagay lahaayeen marka maxay igu imaanayaan haddaan soo xuleyn aniga hadda meeshan jooga waa la ogaa xaqiiqatan ilaahay waana tusay wixii xal aan u arkayn inay ahayd waxaan rabaa inaan dib u baxo oo aan idin sheegay meesha wax ka bilowdeen waa la socotaan inuu jiray sharci oo baarlamaanku uu ansixiyey oo la isku raacay oo muddo soo socday markii hawshii dhamaatay oo aan lahayn horaa loo dhaqaaqayaa taariikh cusub aan gelinaa ummadda caalamku waxay arkayaan Soomaaliya in cageeda isku taagtay waxay yiraahdeen waa ka biyadiin ma doonayno waa inaan ku noqonnaa tii 2016 inaan ku noqonno waxay noqotay marka inaan halkaas xal ka raadino bacdama meelaha lagu qabanayo doorashooyinka ay iyagu joogaan waliba intaas kaliya ma ahayn iyagoo dhan ay ka wada sinaayeen ama ka wada siman yihiin fakarkaas ah in lagu noqdo 2016 si aan marka u bilowno wada hadal waxaana soo galay cudurkii coronavirus-kii waana soo galay waxaan isla soo galnay qadka zoom-ka ama internet-ka ama video conference yaan isla soo galnay annagoo doonayna inaan isla meel dhigno goobtii iyo waqtigii hawshaan looga hadli lahaa shirkaasi oo ahaa zoom-ka waxaan ku ballannay in aan si physical ah oo dhab ah aan isugu imaanno ujeeddada zoom-kaasna sidaas uu ahaa anay ii xil saareen
inaan keeno goobtii iyo waqtigii waxay la noqotay in aan magaalada muqdisho aan ku asteeyo goobtii iyo xilligiiba markii hal casho ay ka harsan tahay yaa waxaan ogaaday in qaar ay diideen inay yimaadaan haddee waa isla gaarnay go'aankaas aniga inay siiyaan inaan keeno go'aankaas usbuuc iyo 10 berina ay soo socotay oo wax hadal ah uusan jirin waxaa dhacday in shirkii u baaqday marka shirkii inuu dib u dhacay waxaan nidhi marka dib baan u dhigaynaa iyagii baa gaar u showray waxay yidhaahdeen annagoo united ah oo shanteenna ah sidee aan uga hor imaannaa dowladda dhexe dowladda federaalka ah marka aan dhuusamareeb wan aan qabsanno dhuusamareeb wan waxay ahayd inay u midoobaan siday uga hor imaan lahaayeen dowladda federaalka ah waxay u arkeen inaysan xal ahayn haddii aan hal mar wada imaano meeshii marka inay gaar u showraan oo xeer dhigtaan oo ballamo hoos qaataan si ay ugu khasbaan dowladda dhexe waxa iyagu ay rabaan go'aan waxay ku qaateen meeshii aan filayay inay yidhaahdaan madaxweyne waa kuu cudurdaareynaa ballantii aan ku ballansanayn inaan kugu imaano xamar waa ka baaqannay fadhigaagaan kugu imaanaynaa waxay yidhaahdeen hadday dan kaa hayso election inaad gashaan 2021 dhuusamareeb noogu imow danta waxay ugu kaliftay marka aniga keliya maaha iyagu waxay u malayaan anigu keliya inay waxay ka maqan yihiin dowladda federaalka laakiin mas-uuliyaddu waa wada leenahay waayahan idhi marka anaa idin imaanaya marka ha kala tegina dhuusamareeb 2 saas yaan iskugu nimid inaan isqancinno oo aan wada hadalno oo aan wax meel wada dhiganno waxaan u imid dad iyo xanaaqsanba oo hal dhinac ah waxaan damcay inaan dhaqaajiyo iyaguna waxay ku talagaleen oo qorshe u samaysteen inay idaaliyaan oo ay dhaqaajiyaan uma is dhaqaajin weyn waxaan isiri marka istaraatiijiyadan ma istaraatiijiya delay tactic ah miyaa oo la rabo in lagu gaarsiiyo February 8 2021 waxaan ku yiri nimayahow horta xaalad sahlan ma aha waa arkaa inaad kulligiin iga wada hortimaadeen oo hal dhinacaad joogtaan maan u tala badsanno anna aan dib u noqdo idinkana dib u noqda ilaa waa ismari weyne waxaan go'aan ku qaadanay marka inaan samayno guddi farsamo oo hawshaan nooga shaqeeya waqtina qabsanno oo aan dib u kulanno oo ah August 15 intaas yaa ka soo baxday iyo qof walba meeshii uu taagnaa inuu taagnaado laakiin rajo ay jirto in la isu soo noqdo guddi farsamo ah aan samayno dad xul ah oo farsamo yaqaan ah oo hawshaas ka shaqeeya sidaas weeye horta dhuusamareeb 3 ay ku timid nin walba isagoo committed ah inuu yimaado guddiga farsamada waxa ay madmadoobeyn karaan ay soo madmadoobeeyaan aan halkan isugu imaano marka annagoo diyaarsan oo qof walba ogol inuu dabco ama inuu isdabciyo inay ka soo tagaan 21 anigana aan baarlamaankii la soo tashaday aan yiri see wax yeelnaa extension annagu ma rabno inkastoo oo ayna leeyihiin extension rabtaan extension ay nagu riixayaan annaguna aan dabacno iyaguna ha dabcaan markaan halkan nimid haddee sidii oo kale walaalaheen qaar yaa ka maqnaaday meesha oo aan rabo inaan u mahadceliyo runtii dadaalkii hore ay sameeyeen haddana aan ku dhiirigelinayo inay nagu raacaan ama ayna soo raacaan go'aamadii aan qaadanay waana go'aamo aan dalka dhan u qaadnay iyagana aan u qaadnay bacdamaa waqti uu nagu socdo oo intaasan in ka badanna aynan sugi karin sidaas yaan shirkaas uu ku furmay halkan maanta waxaan gelaynaa maalintii 7aad waxaanan oran karaa waa shirkii ugu dheeraa aan oran karo oo hal mawduuc looga hadlayo dulqaadkaasna runtii waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweyne qoorqoor oo muujiyey runtii xilkaasnimo
iyo dadaal badan iyo isku soo jijiid aad iyo aad yaan runtii aan hadda u bartay qorqoor leadership skillskiisa hogaamintiisa wanaagsan oo weliba dulqaadka badan bareesha meel kasta uga imaanayo in shirkan lagu kala tago ama uu dib la isugu soo noqdo iyo madaxweynayaasha kale iyaga naftigooda oo runtii sameeyay wax kasta oo awoodooda ah inay la hadlaan walaalaheenii naga maqnaa iyo cid walba oo saameyn ku leh si shirka u qabsoomo oo ay nooga soo baxdo guulo la taaban karo alxamdulilah waxa aan hadda soo saarnay markii aan waqti badan gelinay habeeno badan aan u dhafarnay waqti iyo juhdi badan aan gelinay waxaa nooga soo baxay shirkaan u soconno horta waxa weeye waa shir doorasho federal level ah ma aha state level haddii marka federal level uu yahay oo heer federaal uu yahay maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka federaalka inay qayb ka ahaadaan ama hawshaan ay tahay hawshooda inay tahay maxaa yeelay ma aha state level ma aha iyagu walaalahay madaxweynayaasha iyagoo runtii ku adkaystay ama ku adkaa inay soo celiyaan seat yaa waxay ay ku qanceen in uu yahay doorashadan doorasho federaal ah oo loo baahan yahay in guddigaas madax bannaan uu hogaamiyo waana ku mahadsan yihiin inay la qaateen waxaa kaloo oo aan ka hadalnay si loo muujiyo maturity ama biseel siyaasadeed muddo dheer ka bacdi inaan gaarnay oo aan ka gudubno heerkii dadku ay isu xulufaysan jireen qabiilka iyo qabyaaladda inaan xoogaa aan u ekaano dad xadaarad leh oo ilbaxa ah sida adduunka ay siyaasiyiinta adduunka ay u dhaqmaan in aan gaarsiino heer axsaabta badan inaan gaarsiino oo qofku uu isku identify gareeyo ma aha qabiil iyo heeb mabaadi iyo axsaab oo qofka ka soo galaya kismaayo uusan u arag keliya kan kismaayo keliya inay isku xulufo yihiin kan boosaaso ka imaanaya inay isku xulufo noqdaan uu dhegta ku hayo yaa kaaga soo baxay qardho yaa kaaga soo baxay boosaaso yaa kaaga soo baxay gaalkacyo uusan keliya fiirin qabiilkiisa inta qof oo ku hareeraysan marka inaan ka gudubno qaabkii hore oo qaab casriyeysan oo nidaamsan oo adduunku fahmi karo annagana aan u muuqanno inaan bislaanay inaan gaarsiino oo axsaabta iyadana waa isla qaadanay waa ku mahadsan yihiin walaalahay waxaa kaloo muhiim ahaa inaan gaarsiino heer degaan aan gaarsiino oo aan hal meel keliya lagu kontroolin hal qofna uusan kontroolin degaanadoo dhan laga soo galo oo degaan walbaba ay bartaan doorashadu waxay tahay hal mid waa iga saxsanaayeen in alif axmaali laga bilaabo iyadoon lagu boodin albaqaro la aadin marka tartiib step by step dadka in loo fahamsiiyo waxay doorasho tahay waxay axsaab tahay waxay dimuqraadiyad tahay iyadana waa isla qaadanay inaan baahino marka intaas yaan u arkay inay ahayd muhiim aan uga gudbeyno marxaladdii hore oo runtii koobnayd oo ay ku dhex jirtay waxyaabo badan oo sumcaddeenna iyo sharafkeenna dad ahaan iyo dowlad ahaan wax noo dhimaayey oo ay ka mid ahayd musuqmaasuq wax yaroo kooban oo la musuqmaasuqi karo saameyn shisheeye in dad shisheeye ay odhan karaan dadkaani waa baahan yihiin waa poverty dhaqaale xumaa haysa waxbaad iibsan kartaa dad bini aadan yaad iibsan kartaa dadkaas shisheeye inaan u sheegno waxay aaday soomaaliya qaab la isku doorto mabaadii iyo axsaab aysan ahayn jeeb intee la eg yaad haysataa alxamdulilah taasna waxay ii noqotay wax iyagu ay igu convince gareeyeen in aan runtii dabco waana wax sax ah oo loo baahan yahay dhaqankeena siyaasadeed oo muddada dheer aad u xumaa in aan bedelno caalamkan aan u muujinno doorashadeennu ma aha yaa lacag haystee inaan ka dhigno yaa brogram fiican haysta yaa mabaadii haysta yaa wanaagsan in aan isku dooranno oo cid walbaba ama degaan walbaba ay raadiso qofkooda
wanaagsan oo level xulka qaranka geli kara aysan keenin qofka intuu xoogaa meelaha wax ka soo helay wax iibsan kara marka runtii arrintaasi waxay ahayd arrin aan oran karo inaan ka gaarnay tallaabo muuqda oo progress ah walaalahan Jubbaland iyo Puntland waxaan leeyahay madashaan waxbaad ku leedihiin dad waxaad tihiin runtii wanaagsan idinka iyo dadka aad matashaan waa nagu fog tihiin waa ka xunnahay in aydan imaanin oo xaadir aydan halkan ku ahayn laakiin waxaan aaminsanahay inaad dib nooga soo qaybgeli doontaan ma idinka maaranno waxaan u baahannahay awooddiinna dhinac walbaba hadday tahay maskax hadday tahay xigmad hadday tahay fakar iyo cid wax walbaba waxaan idinka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed idinka codsanaysaa waxaan ku jirnaa xaalad Soomaalida oo u bixisay kala guur sax ma aha kelmaddaas kala guur ma aha xaaladan xaalad doorasho wax kala guuraya ma jiraan laakiin xaalad walba oo isbedel la filayo dadku moodkooda iyo dhaqankooda waa isbedelaan marka annagoo miirkeena qabna doorashadu waa wax wanaagsan oo loo baahan yahay in aan muujino cabirkeena inuu kor aaday aysan noqon wax lagu kala tagay ama lagu kala fogaaday ama lagu kala guuray muhiimadda aan u soconno waxay tahay danta guud ee ummadda iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed way waxaan ka shaqeynayno kama shaqeynayno inaan u danayno shakhsi uma danayno dawlad goboleed gaar ahna ma aha waa wax ummadda Soomaaliyeed ka wada dhaxeeya oo aan wada leenahay maslaxadeedana aan wada leenahay ugu dambeyn doorashadan waa doorasho aan oran karo waa doorasho isku dheelitiran dhinac walbaba ma aha meeshii anigu aan rabay ma aha laakiin waxa rabta hadaa weydo waxa ka badan weydo inaad samaysid weeyo haddii laba iga maqan tahay saddexdaana aan ku diido hadda ma aqaan meeshaan wax geen karo marka saddexdaana inaan hayno labada kale waa lehna inaan raadino ummadda Soomaaliyeed isku soo dunno dad ka mideenno aan wada jirkooda ka shaqeyno marka waxaan leeyahay waa doorasho isku dheelitiran oo ku timid isu tanaasul isu dulqaad waxa isasiin iyo dabac badan iyadoo loo daneynayo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer dhibaataysnaa muujinaysana wixii dhacay oo shalay dhacay inaan wax ka baranay oo aynan ogolayn in nala soo dhex galo oo hawsheena annaga dhexdeena aan xalisan karno ugu dambeyntii shirkii Dhuusamareeb 2 waxaa la ii keenay proposal la yiri magaaladan waa magaalo runtii taariikhi ah oo qadiim ah magaceedana magac ka duwan magacyada Soomaalida magaalooyinkooda inay tahay marka si aan u casriyeeno magacii magaalada waxa madaxweynaha iga codsaday iyo mas'uuliyiin badan in aan ugu dhawaaqo magac kale oo la yiraahdo Samareeb mudan madaxweyne wax badan baa lagu soo caaramaalay Dhuusamareeb hadda haddii aad noqoteen Samareeb waa idin la qaatay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi